golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee xafiiska kule waddankani Jamhuuriyadda Djibouti ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxa ay tacsiyo u direen ummadda Djibouti iyo dhammaan madaxda waddankani Jamhuuriyadda Djibouti geeridii naxdinta lahayd ee dhawaan ku timid gudoomiyihii bangiga dhexe waddankani Jamhuuriyadda Djibouti marxuum Jaamac Maxamuud Xayd waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha ganacsatada waddankani Jamhuuriyadda Djibouti Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale waxaana hadalkiisa uu ku bilaabay sida tan geerida ku timid walaalkeen Allahu naxariiste Jaamac Maxamuud Xayd inay ka tacsiyaan Ilaahay u baryaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala heeri oo ka tagayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu sabr ku risaaqado Jaamac Maxamuud Xayd Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu عفيو يغفرانك أكتيس إله سبحانه وتعالى قبريس إله إنه كعريرين وواسعيو صبر كاس أي فنتي الدعاء أي ضد المسلمين تهدان هاي إن مركز تنو إيمان يسوع جريداس وحتما كل نفس ذائقة الموت مركا نفكس طبع هالكاس أي قدام بين دونتا مركا فنتي سيوناك سنو لنتي يوم الجمعة maalin oo maalmaha dogtiino Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu karaamad maalmaha isbuuca ayuu dhintay waan naqaana runtii ninkaas Allah uu naxariisto khayr inaan ku garanaynay Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah uu naxariisto kitaabkiisa mid Allah ka siiyo عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم ريركيس وحلنا هاي سيد الدعاء المسلمين تكون دعاء عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر المرحوم جامع محمد حيد إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا ساس يا رنتي دعاء مأثور رسولك عليه السلام لقولي ساسان ودعينا هذه يو قرابدي يو أمدنا الدنين قرن أيو هاي أمدنا بكود التجي أبوين أو رنتي ودن كوحوين وفريو هاي وانين رنتي هير كري أنكر لمن أمدنا متقانا كرنتي إلهي سبحانه وتعالى نحريستو كتاب كيس الميت على كسيو انت كدب waxaa goobtaasi ka hadlay Maxamed Saciid Dahabshiil oo isagu ah gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil waxa uuna ka waramay taariikhda uu ku lahaa Jaamac Maxamuud Xayd soo degista bangiyada Soomaalida ee waddankani Jamhuuriyadda Djibouti waxaana tacsi u dareynaa tiiraanyale runtii oo naxdin leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geerida ku timi Jaamac Xayd inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baanu leenahay ilaahay au naxariisto samiriye iimaan baanu leenahay waa nin qaran buu ahaa nin ma ahayn nin qoys wuxuu ahaa nin qaran ma ahayn nin reer Djibouti wuxuu ahaa nin Soomaalida dadkan madaqadan jooga oo dhan oday u ah wuxuu ahaa nin la xasuusan karo waxaan soo go'day markaan baanka aasaasay isaga taladeesa lahaa runtii isaga ay Djibouti kaale isaga ay halkan kaale isaga ay daarta gal sidaa darteed ba bangiyadu ku soo degeen bangiyadan maanta badan gadi Jaamac baa ka mas'uul ahaa oo keenay isagoo u danaynaya dalka iyo dadkaba Cabdirashiid Hayba Dubad oo isaguna gudoomiyaha golaha ganacsatada Soomaaliyeed oo ka waramayay shirkadaha ay tacsidan ku soo gudbinayaan ayaa waxa uu hadalkiisii ku bilaabay sida tan lillahi wa inna ilayhi raaji'uun guud ahaan waxaynu halkan tacsi uga direynaa tiiraanyale marxuum Jaamac Maxamuud Xayd oo ahaa gudoomiyihii bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Djibouti ganacsatada meeshan fadhida waxay ka kooban yihiin qaybo fara badan oo kala duwan qaybahaas ay ka kooban yihiin waxa kamid ah bangiyada labada baan ee islaamiga ah ee Dahabshiil International Bank iyo Salaam African Bank labada baan taariikhdii Jaamac Maxamuud Xayd baa ka muuqata waa laba baan oo aas-aaskooda uu qayb weyn iyo odayba uu ka ahaa Jaamac Maxamuud Xayd waxa kamida xawaaladihii oo dhan baa jooga waxa jooga diyaaradihii
waxaa jooga ganacsigii guud oo nooc walba leh xoolaha iyo ganacsiga guud oo dhinac walba leh sector walba oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed dadka halkan fadhiya waa ka kooban yihiin guud ahaan qaybaha ganacsigu ka kooban yahay ma jirto cid maanta ka maqan intan ka ogahay waxa fadhiya ilaa 13 shirkadood oo sharaa'ig waliba ganacsiga caadiga ah ku jira ah iyo shirkadii waaweynaa sida baananka diyaaradaha iyo xawaaladaha kuwaasoo dhamina waa fadhiyaan dhammaantoodna waxay tacsiid tiiraanyale u dirayaan marxuum jaamac maxamuud xayd ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qabriga allaha u nuuro ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa midigta ha ka siiyo Mikael Cabdirashiid Barre telefishinka qaranka Soomaaliyeed Djibouti